wixii noloshiisa ku saabsan macnaheedu ma aha inaad faraha ka qaado macnaheedu waxa weeyaan inaad tawjiihiso aanad ula dhaqmin sidii aad ula dhaqmaysay maxay kanaan qaan gaadhin ee yar saad ula dhaqmaysay waa inaad ula dhaqmin waa inuu dareemaa inuu mas-uul yahay waxay yidhaahdaan mushkiladda dhallinyaradani xaggay ka timi alustaad maxamed qutub oo ka mid ah culamaa'i tarbiya takhasuskiisuna tarbiya yahay ayaa wuxuu leeyahay yani nimanka tarbiyada iyo psychology-ga masale way isku waafaqsan yihiin da'dan wuxuu caan ku yahay bay leeyihiin qofku marka uu yar yahay bay yidhaaheen koristu si yar bay u socotaa marka la weyn yahayna koristu si yar bay u socotaa ama hoos u dhaadhaco si yar buu u socdaa da'dan bay yidhaahdeen waa da explosiona bay yidhaahdaan waa mufaaja'a wax waliba waa mufaaji' bay leeyihin koritaankiisaa dheereeya codkiisa isbeddelkiisaa dheereeya thinkigii wax walba waa qarax bay yidhaahdaan waa da uu qofka bini aadamka qarxo maadaama uu da'dan qarxo waxay yidhahdeen laba wax baa mar wada qarxa buu leeyahy maxamed qutub waxaa wada qarxa buu leeyay qaybtiisa biologicalka ah jidhkii wiilkii yaraa inuu nin isu bedelo tima ka soo baxaan wax waliba isbedelaan gadh yeesho meelaanu tima ku lahaan jirin tima ku yeesho uu ninnimo isu rogo oo si dhaqso ah inantuna si leeg inay si dhaqso ah gabadhnimo ay isu rogto waxaa kaloo la socda buu leeyahy waa fitra buu leeyay uu quwa ruuxiya kubra ay ku dhacda buu leeyahy idan waa fitro u baahan buu leeyahy in lagu hago cibaadaad tiro badan le iyo diin tiro badan reer galbeedka iyo islaamka waxa u dhexeeya buu leeyahy iyagu quwada biologiga bururtay ayay qabtaan buu yidhi hoos bay u jiidaan markaa oo ah ila radiila xagga xumahay qabadsiiyaan islaamkuna buu leeyahay alquwa ruuxaniya ayuu qabtaayoo kor buu u jiidaa oo ila alculuw sida daraaddeed waxa isweydiinta leh ilmaha kani da'dan markuu soo gaadho wuxuu u baahdaa daaqada jinsigaaba ku badata sida ay sheegeen iyagu waa sax laakiin daaqada jinsiga inay ku badato macnaheedu ma aha in la iska firinbidho ama la dawaqo ee waxa uu u baahan yahay qofku in la tawjiihiyo in la baro wixii uu nebigu dadka baray calayhi salaatu wasalaam oo ah waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ha dhowrsoonaadaan kuwii aan haysanin waxay ku guursadaan dhowrsoonida qofku inay tahay wax la baro weliba mas'ala jira aada u fiican tahay in la ogaado waxay yidhahdaan da'da tan inkasta uu caqlaani yahay wuxuunbuu isticmaalaa bay yidhaahdeen markay right and wrong timaado markuu yaraa wixii lagu soo kobciyey bay yidhaahdaan haddaad markuu yaraa ihmaaliso oo markuu da'dan soo gaadhay unaad tidhaha ama xijaab xidho ama salaadda maxaad ka weyda ama caynkan maxaad samayn weyday waa fatra khatara bay leeyihin right and wrongku wuxuu ku fiican yahay bay leeyihin inuu culturally wuxuu la soo koray noqdo oo intuu yaraa xijaabka salaada waxa kan uu soo bartay si marka kan malakadiisa doorashada waxa xun iyo waxa sane ay u dhisanto waxa uu u baahan yahay bay leeyihin wakhtiga kan in la baro nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj inaad u diyaarisay hadduu guursan karo inuu guursado mar hadduu qaan gaadhay uu guursan karo inuu guursado haddii aanu guursan karin dawadii nebi maxamed inaad barto ah inuu soonka badsado waxaa la rabaa da'datan in loo traingareeyo istifraaqu taaqa bay yidhaahdaan maalan daaqaadkaasi tirada badan leh ee ku saabsiisan enerjiga tirada badan leh qofku hayo istifraaqu taaqa in lagu sameeyaaba ku fiican bay dhahay istifraaqu taaqa waxa weeyaan da'datan culimadii salafku waxay bari jireen dabaasha furuusiyadda fardafuulka waxaasi oo dhami waa alistifraaqi taaqa iyo in loo traingareeyo inuu hadhow jihaatami karo ama qof isku filan uu noqon karo istifraaqu taaqa waxa weeyaan qofku enerjiga ku kaydsan inuu iska bixiyo laakiin
ceebta halkan jirta waxa weeyaan haddii energy-gana laga saari waayo cunadana loo tiro badiyo musiiraadkuna agtiisa ay tiro bataan filimka xun heesta baliya baaska musiiraadka jinsiga ah qofka lagu kaakiciyo dee adigaa u sii tilmaamaya inuu suuqa galo yani bulshadaa sii hagaysa oo u sheegaysa inuu suuqa galo waxaan u malaynayaa waqtigii bay gaadhay malaa waqtiga intii ugu badnaydna waxaa iga qaaday nimankii aan khayrka badnayn warkoodii mucday aan u socdayna waxaad moodaa in aanan si quruxle wali u soo bandhigin cumuuman waxaan odhan karayaa uun da'yartu waxyaabo behavior oo ay leedahay baa jira ama dhaqana oo ah maalan ninka da'yarkii waxay idhaahdaan 8 saacadood ayuu ku bixiyaa communication ayuu ku bixiyaa hadal iyo la xidhiidh iyo waran 8 saacadood buu ku bixiyaa 8 saacadood buu ku bixiyaa macnaheedu waa maxay 8 saacadood uu hadlaya bay idhaahdaan 8% qura ayaa suurtagala bay idhahdeen inuu qof da' weyn la hadlo macnaheedu waxa weeyaan markuu da'daa soo gaadho bay leeyihiin caruurta iyo guriga iyo waalidka iyo waxa inuu ka baxaa buu jecel yahay saaxiibba inuu yeesho asxaabta intuu la dhaqmaaba waxay ka badan tahay bay leeyihin intuu dadka weyn la dhaqmo fanu tacaamul waxa ka aasaasa bay leeyihin markaa inaad da'daa aada uga feejignaato inaad saaxiib fiican u yeesho da'dan wuxuu u baahan yahay sheeko badan hadal tiro badan waa aragteen yararku afkunba isku hayaano ma aamusaan aamus la-aantani waxay u baahan tahay bay leeyihin beer group uu la dhaqmo danuubta inta badan ay galaan bay idhahdeen da'datani beer pressurekay ku galaan bay idhahdaan groupka kan oo uno mid ka midoo xumi wax ku cadaadiya ama wax sameeyuunba iskaga wada daydaan oo ay sameeyaan sidaa awgeed da'daa waxa khatar ah iyaduna saaxiibka waxa la yidhaahdo shareecadana waa taqaanin saaxiibka xun iyo saaxiibka san iyo saaxiibnimada iyo environmentka wanaagsan iyo deegaanka fiican iyo deegaanka xun da'daasi waa khatar marka da'daasi waxay u baahan tahay meel muslim jooga inay hesho waxay u baahan tahay asxaab muslimiina inay la xidhanto waxay u baahan tahay dad akhlaaq fiican leh inay ku xidhanto waxay u baahan tahay naadi ama kilaabo cayaareed cayaar hadaf leh laakiin oo fiican inuu helo oo uu enerjigiisa ku bixin karo wuxuu u baahan yahay in la socialize gareeyo bay idhaahdaan waa qadayaadka ugu khatarsan soomaaliduna ay aadka u ignore garaysa gaar ahaan soomaalida waqtigan dhulkan joogta waa maxay waxay idhahdaan da'dan wuxuu ku fiican yahay in bulshada shaqadeeda laga qaybgeliyo identitygiisu markaasuu garanayaa bay leeyihin inuu qof acceptable mujtamaca dhexdiisa koo la ixtiraamayo inuu yahay maxaan uga jeeda matalan waxaa laga yaabaa masaajidkan iyo waxa ka shaqaynaya waxoo dhan waxaynu rumaysannahay haddii kuwa yarar shaqo loo diray inay hallaynayaan in ninbo odaygu ka weyn yihin inuu shaqeeyo aynu rumaysannahay 20 nin oo waaweyn oo gadhlown baa ka shaqeeya cid kale ma joogto waxay ku fiican tahay bay dhaheen bulshadu shaqo kastoo ay hayso in laga qaybgeliyo iyagaa ka xoog badan dadka kaloo dhan ha la tawjiihiyo ha loo yeelo supervisor haga laakiin ha dareemo qofku inuu shaqada isagu qabanayo teenager groupkiina maanta ilaa jaamacada ku jira 19 jir 18 jir 17 jir waxaan isleeyahay da' badan oo halkan fadhida ayaa ka shaqo fiicnaan lahaa laakiin waa haddii maxay haddii la hago shaqadana la tusiyo shaqadu waa maalmaan la istusiyaa dan qofku sida ugu fiican buu u qaban karaya ta kale waxay leeyihiin qofku mas-uuliyaadku markaa dareema inuu bulshada ka mid yahay haddii laakiin aad tiraa waa yar yaroo weli waxba ma oga way firinbidhayaanuun xaggay u socdaan waa dhanka kale da'da tani waxay leedahay bay idhaahdaan confirming behavior inay aada ugu dheganaato peerkeeda ama saaxiibkeeda da'da tani waxay leedahay bay idhaahdaan maternal behavior waxay ku tilmaamaan oo ah weliba xayawaanaadka qaarkoodna way la wadaagaan ninkubay yidhaahdaan da'daa jooga inuu dabadda u baxo reerka ka fogaadaa buu jecel yahay yacni guriga iyo gudihiisa iyo meelaha ma jeclaan dabadda inuu ka joogo laakiin waxay yidhahdaan inantu hooyadeed inay aada ugu nabnaataabay jeceshay hadday salaanta soo dhaweynayso inantu markay da'daa soo gaadha bay yidhahdaan 15 16 inay hooyadeed aada ugu nabnaato ka ag dhawaataabay jeceshay hadday se islaantu ta islaan mucallimada oo hagi karaysa oo wadi karaysa saa daraaddeed